saasaa lagu shubaa karow miyaas leedahay hal mar oo ku booda waa soo baxaa haddaa soo baxo meeshaa gal leed raadso cabdirashiidee muxuu yahay wax la dhacmaa lagu gataa mise wax celisi waxsaas maxaa lagu sameeyaa baahi jirta awgeed mobilka waa ka qaatanoo isdhaha Ibrahim lacagtiisa oo soo buuxi doontaa waana sii doontaa ninkii waa waay intaan xayaa muraayada ka dhac albaabka sida ugu booday banaanka markaas uu istaagsaday wax meesha jooga ma leh waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa dembiga ah dhac kadib markii aad moobeello ka daftay dhibanayaasha kale ah Faa'iiso Cabdiraxmaan Cali oo aad ka daftay moobeel nuuciisu yahay A16 Naciimo Yaasiin Aadan oo aad ka daftay moobeel nuuciisu yahay iPhone Ibrahim Xasan Cabdullaahi oo aad ka daftay moobeel nuuciisu yahay iPhone Maxamed Xuseen Xaashi oo aad ka daftay moobeel Samsung A56 sidoo kale moobeeladan waxaa qaar ka mid ah ka gaday dhibanayaasha kale ah Asad Mardaad iyo Saalax Abuukar Maxamed kuwaas oo dukaamadooda aad u geysay si ay kaaga iibsadaan adiga oo ku dhahay waa hantideyda halkaas oo dhacay degmada Boondheere degmooyinka Boondheere Shangaani Xamarweyne Yaaqshiid waxaana u dhacay taariikho kala duwan saadaam wax badan aad daftaan ugu dhamashaan dadka dhacay hal moobilka ka daftaa 4 qofood ayaa wax ka qaata moobiladooda 2 qofoodna moobiladii aad dhacdaa ka sii gaday adigoo saga dhigina adiga leedahay eedaas ma gashay mise ma gelin dooda ka qabtaa mudane gudoomiye dooda ka qabaa aye dambiga lagu heystaa waxay tahay mudane gudoomiye horta wax dhac la dhahay ma jiro waxaan dhacay ma jiro mana dhicin wax tan kale waxa waaye gabdhahan labada gabdhood oo Faa'iiso iyo Naciimo soonkii hore ilaa bilaha dambe dhan waa isla wada deganeen dad guri isla wada deganaa ahayn isaqaan xaaskayga dhibaateen oo gacan qaadeen gabdhooda badan waa guri degan aniga xaaskayga bis faqad ka ahayn kulligooda marka xaaskayga gacan saareen oo ayaga ku ficleen oo waqdadeeyaan dhibaateeyaan mobilkeedii ka jibiyeen marka de saas sameeyeen tali iyadoo taas taal awgeed aniga ugu sameeyay labada mobilood in aniga ka qaado ko waqdadaas darteed waa laga tagay Ibrahim ku soo hiro iPhone ka Ibrahim iPhone 15 Pro Max waa leeyahay been maaha maalinka ka qaada maalinta ka horreysay maalinta si horreysay mudane gudoomiye waxa uu keenay mobil 13 Pro Max oo cusub waxa ku dhahay Ibrahim mobilkan hay isi 200 oo rahana mootoolaha ninka saaran waa dalaal guri kiraal ee rabay askayga dhiibo 200 hadaan ka qaato mudane gudoomiye maalinta kale xigta oo soo laabtaan Ibrahim lacagtaada ku raadayay Snapchat ka walba ka raadayay dadaan kala hadlahay mobilkan isii karta intaas isna qaana ilaa 2020 ka isna qaana ninkaas ilaa hadda isna qaana mayo dhaam ku sii kari ee toos lacagtaada ku wada celinaayo mobilka ma ka samre hay celinay marka waa marka 170 kugu daraa u dhaay ku qiimeysan markaas 370 mobilka hadduu intaas ku qiimeeyay ka mobilka wax kale ku daraa u dhaay shalan 200 ay qaatay 200 ay celi karin mobilkiina ka qaadi karin waxa qasab igu noqotay in lacagtan ka qaato oo 170 ka 370 aan ka qaado mobilkaas cusub yahay wuxuu igu qiimeysnaa 540 iPhone 13 Pro Max oo ah ha ahaato marka maalinta kale aasi u imaado waxaan ku dhahay mobilna ka iibsadaa waa isii marka mobil kale isoo bixi markaas uu isoo bixi mobil 15 Pro Max 15 ka duu isoo bixi ani mobilkayga waxa ku jirta 450 waxa ku dhahay meeqa intaan mobilkan iga siin oo dhahay 830 ma soo dhawiyaan dhaaniyo kala baraa haystaan dhahay mayo dhahay waxaan dhahay xataa 500 ka dhig oo ku bixiyo konto kaan 500 ka dhig mobil la'aan ah mobilkan isii soo u diiday awgeed marka Ibrahim kan waa isla qaanay si kalena xal kalena ee mufuna mobilkan waa u baahnay baahi jirta awgeed mobilka waa ka qaatanoo isdhaha Ibrahim lacagtiisa oo soo buuxi doontaa waana sii doontaa hadaa bax magaalada waa ka wareysaa mudane gudoomiye inta daa u dhaqaaqo $10 ka bixis mootaraac inta daa u dhaqaaqo lacag kala ka bixis mootaraac lacagtii waa isii dhintay that's why oo Ibrahim ilaa haddan inta Salmaan ay gaarto lacagtiisa u waayay haddana inaa sii diyaar ah marka mudane gudoomiye labada dhibana saas ay iga heereen kan saddexaad ku soo hiro oo yaqshid ee kontoni 6 ka maqan tahay Samsung ka mudane gudoomiye kaas dan iyo duruuf awgeeda u bareere dan iyo duruuf jirta awgeeda hadaa taas u bareero ka soo qaatana mobilkaas waxa ogaay mudane gudoomiye wadanka inuu sharci ka jiro kaamirooyinkan ee shaqeeyaha maalmaha kamid ah in is qabsado doono ama meel kale ay u qabsado ama inta ay u qabsado lacagtiisa inaa siin diyaar ah ahay gabdhahanna hadda kana maanta ay u qabsadaan wax walba diyaar ah u lahayo lacagtooda inaan bixiyo mudane gudoomiye inta ay sheegteen daraad saldhiga horta iyadoo in la isku wada xaliyo la rabo waxay dhaheen qofkiiba lacag oo sii dul saartay ala qof lacagtiisa lacag oo sii dul saartay marka reerkii familkan waa si yaabeen dib ay u gurteen
saana dhashay marka in maxkamadan la soo orsiiyo maanta agtaada ay imaado aawda mobile labada moobeeladii waa yaalaan intii yaalan meeqa maalin xiranta 13 maalin xirnaa maxaa u keeni weysa intaas maalin waxa u keenay moobeelada qaar oo Soomaaliya inta kale moodana family-ki iyo reerihii waa isku tabarcad oo iska reer tabar waan arooriyeen lacagtii in la dhiibaal rabay markay imaadeen lacagtii waa kala sameeyaa macna niman kale wax ka gataa jira ma labada nin waxa ka gato waxa waye Asad Mardaadi ee 56 ka gatay saalaxna gabdhihii moobeelkooda oo arbacada qaada u geey Soomaalikaasna waa la soo celiyay waxa ka qaaday Asad Mardaadi moobeelku waa ka gatay waxa ka qaatay 250 daruufo jirta oo kariga baasaa leeyahay ninkaana ku soo heer saalax asina moobeelka waxa ka gaday gabartan moobeelkeeda 15ka A15ka iPhone 15ka adig mushaar ma hido ciidanka mushaar ka qaatiyo madana gadoomiye mushaar waa ka qaataa mushaarkana rikaabaan iga jaratay marna maxaa la dhahaa muddo ka hor dhibica isaarnado lacag ii soo dhicay maxaa ku qaadataa oo raabka ka jartay muddo ka hor lacag ma qaadeen hadda ii furuntan rikaab lacag $90 ii soo dhacdo ka badan iyo soo dhacdo waxa ka qaata alaab oo kukarka iyo maxaa la dhahaa GFR single oo dumaashideeda imaada u dhiga dumaashidii safar ka timaado inta wax ka baranayso maxaa baratay jaamacadda ku baxday madana gadoomiye waxa bartay dugsi sare hoose dhexe sare iskoolka ay dhamaad dugsi sare ka baxday jaamacad wili maana gelin hogaanka caafimaadka ka tirsantaa hogaanka caafimaadka sa iskoolkayga u dhamaystirto liigu geliyay aniga waxaa askari noqday 2019 anoo 86 sano jir ee taliye marka hogaanka caafimaadka waxa liigu geeyay form 4kayga saa ku dhamaystaa meesha liigu yahay ergadeeda waxaa ka shaqeeyay Maxamed Daahir muddo cida maamada hoobiyo guriga soo dhaceen safar loo qaadaro marka fasax hal sana liisi safarkaas ay aado Turkiga ay aado hadana alboorkii liigu soo reebiyo ku baaqaday ergadii iyo gurnadii sidii lacagtii ay goodo lacagta dawladda caadi booliiska ergada VAB Maxamed Daahir la shaqeynaa staafta madaxda la shaqeynaa lacag kale oo gunaa qaadanay marka maamadii cid hoobiyaha guriga ku soo dhacay waxa la marka cida banaanka loo qaadaa waa liigu darrab anoo liigu darrab hal sana fasax oo dawladda ii jartay sidii askaga baaqada mudane gudoomiye alboorkan waa liigu soo celiyay kan muxuu ahaa ninkan saaxiibkayga maxaa lagu haystaa asigan waxa lagu haystaa kiiska maalinkan oo mootada inuu igu wada asi yakhshid marka aadeyni dalwarkaygu u ahay yakhshid marka aadnana marka moobeelka ka soo qaatay ninkaasna asaa soo waday waa iqaado ku dhahay see wax u dhaceen waxa u dhaceen maalin maalmaha kamid ah maaragtay mootola ayaa ku dhahay maalin maalmaha kamid ah aanu shaqeynaa laamiga saaran waxaa aragnay ninkan oo magaalada soo joog soo qaaday markaas waxay dhahay xaafadda rabaa xaafadda ay geemiga shaqeysanay anna marka laamiga maxaa saarnaa inaan shaqeysto Soomaa marka waa soo qaaday xaafadiisa geey lacagteeda ka qaatay waa ka tagay marka lambar oo iga qortay maalmaha kamid kale oo soo wacay waxay dhahay shaqeynaysaa ayda shaqeynaysaa ilaa xaafadiga ugu maaday marka xaafadda marka ugu maaday markaas wuxuu ilaa meel inta wax ka soo qaadanay way soo celinay ay soo bax marka meeshii ay tagnay ana marka banaanka iska taagnay markaas wuxuu ilaa ninkan oo soo socda la arkay oo dukaankii ka soo dhamaaday marka sidii uu soo qaaday ana xaafadiisa geeyay maalinka inuu wax soo la soo cararay markiinu maalintii ma waxna imi sheegin waxna soo cararin moogeen ana marka banaankaas ku sugay moto Falcon ma leedahay adiga Falcon ana miliyo ka shaqeynay awda hadda way taala intee taala waxay taala saldhiga taala ya iskale waxa iskale aniga waxa la ay bis waa ka shaqeynaa linin kala iskale oo saaxiibana kirista ma yani waa kirista oo shaqeynay marka wiil kala iskale mootada oo saaxiibana markii adiga waa la ogeed inuu wax qaato ninkan ma talin lama ogeen gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh labada eedeysane ee kala ah Saadaan Cabdullaahi Cali iyo Maxamed Cali Maxamed waa laba eedeysane oo ku bihoobay dhaca iyo dafidda moobeelada dhacaan naqiinay wuxuu ahaa in qoray qofka taqaato oo jidka istaago oo qofka si xoog wax uga qaato laakiin Saadaan oo booliiska ka tirsan hogaanka caafimaadka ka tirsan wuxuu soo kordhiyay sheeko iyo arin aan booliisku iyo sargaal booliis ama askari booliis ku cusub oo ah in inta moobeel la dafo janta fagax la dhaho waana arin cusub oo magaalada ku cusub waay gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh sidaas uu ku sameeyay wuxuu ku sameeyay Faaiisa Cabdiraxmaan Cali oo qolka
guriga isla degnaayeen qolka sariirteeda moobeelka asoo u saaran ayuu ka dafay sidoo kale naciime ayuu ku sameeyey sidoo kale ibraahim xasan cabdulaahi ayuu wuxuu iska dhigay nin wax iibsanayo oo iibsi u soo baxay moobeelka meeqa waaye noocan waaye intaan waaye heshiiska intuu socdo wuxuu fiirinayaa ilbiriqsiga qofka uu isbedelo ama meel kale uu ku mashquulo kadibna wuxuu sameynayaa moobeelka la ordaa markoo la ordo banaanka waxaa u taagan mootofeekon waxaa darawal ka ah eedaysanaha labaad way la baxsaneen way la ordayeen saas waxaa lagu sameeyey ibraahim sidoo kale maxamed xuseen xaashi oo yaaqshii degan suuq bacaad xarunna ku leh meeshaas elektroniga ayuu sidoo kale intuu u tegiyey wareystay isagoo u gashtay dharka jiimka iskana dhigaa inuu jiimka imaado sidoo kalena wata buraashada biyaha lagu cabo markaas wuxuu iska dhigayaa diyaasbaro ayuu iska dhigayaa qaabka diyaasbaro u libsan yahay jaakad weyn uu wataa markaa adig kor ka aragto waxaad u moodaa nin waddamagaas laga keenayo dhaqan cilin loo keeno macnaha laakiin qaabkaasu meeqa waaye intuu dhahaya ninkii oo mashquula kamerada kale bandhigi doonaahe waa la ordaa banaanka markuu u baxo ayuu janta fagax leeyahay markuu ordo wuxuu raacaa mootada eedaysanaha labaad uu watay uu darawal ka ahaa maxamed cali maxamed xafiiska marka faldambiyeedkaa soo gaaray maadaama degmooyin kala duwan uu ahaa oo sida yaaqshiid oo kale xamarweyne shangaani boondheere iyo shibis ee ka wada kooban yihiin eedaysanayaasha dhibanayaasha wuxuu ku mideeyey saldhigga shangaani waxaana baare ahaan ka ahaa baaraha saldhigga shangaani aslub mudane guddoomiyey garsoore maxkamadda sharafta leh xafiiska xilaalinta wuxuu mideeyey galalkii dhammaa wuxuu sidoo kale la kulmay dhibanayaashaas sidoo kale wuxuu baaris ku galay yaa leh mootada waxaan soo helnay in eedaysanaha labaad mootadii laga qaaday oo loo dhiibo darawal kale darawalkii kale ee loo dhiibay asiga oo wato ayaa mootadii la qabtay markii la qabtay milkiilaha waxaa lagu dhahay mootadan dhaca lagu geystay darawalka horeeyeen saasaa darawalka uu soo qabtay darawalka hadda fadhiyo waa waxaa jooga maxkamadda milkiilihii sidoo kale mudane guddoomiyey waxaan dabagalnay oo dabagal aan ku sameynay mudane guddoomiyey dukaamada la geeyey moobeelladan xafiiska xilaalinta wuxuu dib ugu soo celishay moobeelladii waxaa maxkamadda hor yaallo qaar ka mid ah moobeellada oo xafiisku gacanta cadaaladda uu ku soo celishay isagoo adeegsanaya laamaha amniga saddexdaas moobeel eedaysana saadaan ayaa dafay laba ka mid ah gabdha ayaa laga dafay hal ka mid ahna waxaa laga dafay dukaan ku yaallo yaaqshiid laakiin dukaanka yaaqshiid ku yaal marka laga dafay kadib waa la gatay kuwan laakiin waxaa loogu tegay dukaanlihii uu haayo saasaa loogu soo qaaday dukaanlihii asina waa lasku soo qabtay baaris kadib dukaanlihii waxaa la ogaaday inuu dhibana yahay dukaanlihii waa fadhiyaa marka maxkamadda waa joogaa sidoo kale waxaa jooga maxkamadda dukaanlihii labaad ee asna laga gaday moobeelkan ee kontii lixda oo yaaqshiid laga soo dafay laakiin moobeelka waa la waayey wuxuu keenay laakiin moobeel seem le saa laaligeeda asna waxaa loo arkay dhibane maxkamadda hor fadhiya dhibanayaasha guud ahaan waa 7 qaaraa waxay ku xusan yihiin qaybta saro eedda qaarna waxay ku xusan yihiin qaybta dhibanayaasha maxkamadda waxaa ka codsanayna in la hormariyo qiraalka sida hadda qiraalka yihiin waaye in lagu waco Faa'isa Cabdiraxmaan Cali maxaa ka maqan seen wax laga qaatay seen wax u dhaceen أنا حاجة ما كان تليفوني اللي حيتونا ka maqan haye seen wax laga qaatay noo sharax ninkan gurigoona uu maaday ko gurigoona la degnaan jiray ramadaanka hore gurigoona uu guuriyay markoona uu guuray aniga asaas khilaafnay lacag lagu lahaa isku khilaafnay aila amarkiis waa bareegsada xaafada aabay uu wareegsaday muddo ku maqnaay umula ka soo baxay abaaya uu maaday abaaya marka uu maado habeenkii laami uu arkay wana soo daba kacay subaxii gurigoona uu maaday taleefanay 16 maalin haysto sariirtii kor saarnaa qaatay intuu abaa u sheekeeyo lacagtaadana oo ku siihaa maxaa lagu lahaa lacagta noocay lagu lahaa markaas $70 ku lahaa oo guriga jaarkiisa marka 16 beri markay ka soo wareegto noo imaaday hooyaday soo socto dhaawaa dhiiba ilaa amarkiis qolka galay abaa qolka ku jirto ee foon wadatay oo ceedo u qaatay xoog ma u qaatay xoog ku qaatay foonka kadibna way hanjabaadaani soo dhahay markasta waxay dhahay hadda maalin hore marka maxkamadda imaanayeen waxay dhahay
وصوبحا هذا صوبحو ماشي قال لي هدراتسو عيد يبكى بدبادي لي هدراتسو saa ku dhahay ها marka hore oo idila degnay asaga baa idila degnay أسمنا لدقنا قري جبرو أسي قبا يجي جارتي aye إسكابول أهان يجي جارتي ما كي لبها بين دقنا هبين كياسي ماذي هدوي ماذي دقمة أو علية دقمة وحيرة هدوي قوانين كان بيشاني لما تك جورا الله ساسي قري كدقين gabadha marka hore bidin sheegay is qabar miya ما مناش إن إسكابول أهين هذا دقمة ما كاكسو قرا إسرتجين إسكابول أهان يجوسو دكتي ilmi wad marka مايا نما ودن هبين كنا ساي قبا هذا ماشي الله أبانا مركا ماشي تجنا دقمة وحكسو قراتين القبو أسمع تجنا يدا لا تكتب دقمة gabadha islaanteedii dhibaynay mobile ka qaateen uu leeyahay asaga تلفون كاستلفون كأمش هاي هاد أيه. سجال بلودك سوريكتي كنتني لحوها جوريل ضلتو كحوجي وابحي جوري سرادي واتجي أساو تجي هذا حتى التلفون أو حيه التلفون مركا سليك شو بيسوا تقانا على سلا تجي حتى تلفون كيستير هذا نوع كاسايا قاعد كرو أنا تلفون ككتفي إلا أنا وعي القبي حوله يجنين كذا وكم قيني هاي سليك على اسكو حير التلفون كسليك وشو بيسايا قاعدين كيجينا مهلين كودين وهلين ماشي أسا وهاري أنا ذي أو قبل دست تلفون كعك قاعد كو أسيق قات موجود أو إيش ضبك عاي تيو هذا الآلي إتمني قاتي وأنا صالح بتلفون وأنا قاتي kii kood mid ay ka maqnaayeen marka aad tagayseen ها مكا كهرب كنتني لحو هاي وبيجلين وكهركاس فون كينو سلقة قاعدين والسي ماشي كاس وهاري كدب هذا مكا سجال بالكدب كسو وريقتي أو مالي هبين أركا كده هاي لحي طبعا كسو واحد قاعد وا طبعا مالنا كسو وريقتو ناي ما هو إذا يسوسعتو ده تلفون كاوكسيها باينا كاقدرها وأول رال نقو هاي واي هذا ده حولي يصير سقير واي أنت فديسو هو إذا أنت كسب يرد فدية باي خلصك كجرت أول أحد أنا جذالة هذا بجذا إسكجالي عجوا وقعت تلفون كحوك ودف markaas meeqa mobile ka qaatay markii labaad oo telefoonka saddexaad iga marooya ee kontii lix waa biska afrikaas ma uu heestibo laakiin hadda laba telefoon iga marooya walaasha aad hadda joogtaa way joogtaa Naciimo xaaskiisa ma fadhidaa inta joogtaa ma joogto maya ma joogto hooyadiis la joogto hadda marka waxa ka maqan lix iyo toban oo raqam eed iyo iPhone 15 450 marka walaasha caalamiya baayaa leh iPhone ku yaala basaldhigo yaala waa la keenay khilaaf oo isku dhac hore oo xaaska saadaam iyo idinka dhaxay wuu jiri Soomaan may taleefanka meesha laga qaaday oo saadaam idinkaga qaaday waa gurigiina Soomaan gurigiina gudihiis saadaam iyo idinka aqoon oo isku leeyahay koor maxkamadda maasanta taleefon iga maqan aye koo imaaday taleefon oo iga qaatay mar labaad oo 10 bir ka bacdo ii soo laabtay mobile iPhone kale oo iga qaatay sabab maxaa mobilada masiis adiga maalkas ma siineenin guriga oo yaalay qolka jiifka oo yaalay gabar walaashay ay la joogto marti ah sariirta soo istaagay gabadhii oo la ka kaftamay mobilkii dhiibo dhahay Samsung ma ahay mobilka marka loo dhiibay oo dhahday gabadha furi kari taleefankan ani malihi Faisa leh maxaa lahay Faisa ku furayso asi waayo yiri ma weeliyay taleefankii koos qaatay waa baxay saa u raadinay waa waayay hooyadiisa wacay hooy waxa ku dhahay mobile iga maqan wiilkaygana maxaa lahay mobile iga qaatay lambarkiisana maxaa lahay ma iga qabanay oo igu dhageysanaa marna inuu igu dhiibaa maxaa lahay la hadal hooyoy waayahay igu tiri waa isla soo noqonaynaa igu tiri waayahan dhahay waa ku celiyay haddana hooyo waxay tiri wiilkii isma arkin laakiin markaas aragno ana kugu soo jawaab celinayo kabacdina meesan igu soo jawaab celinin iyadoo saasay tahay oo 10 bir mobilka iga maqan oo wuxuu ku darsaday mobile iPhone ah oo ani aan leeyahay sida uu darsaday waxay tahay albaabkaas waxnimo soo garaacay ma laga furayaa lagu dhahay ani waa hurday gabar walaashay ku dhahday markaas wuxuu dhahay iga fur lacagtii wadaa iyo mobilkii oo niga qaatay waayay tiri baaya soo kacday faa'iidada mobilka laga qaatay soo kacday albaabkii ka furtay markii albaabka ka furtay taleefankii ku wada hooyana way soo socotaa lacagtii mobilka rabnaa inaan ku siino maxaa lahay kursi ilig waayay tiri kursiga meesha dhigtay sheexo meesha ku cabay taleefana meesha yiilay abaaya marka waxa ku dhaa mobilka ayaa laga qaadanay meesha soo qaatay waayay igu tiri faa'iidadii gurigayga gadaal u gashay
gabar kaloo walaashay meesha fadhisay qolka igu soo galay qolka markuu igu soo galo saa ii fiiriyey shibaa ka dhehe way igu soo haaday cinjo igu qabtay wuxuu dhahay moobilkiisii ma ku siinaya ku dhaha moobilkayda mayo igu yiri cinjo igu qabtay cinjadu markuu igu qabtay oo igu farmaroojiyey taleefanka markuu igu farmaroojiyey aa ka daba orod isdhehay albaabka igu soo xiray albaabka aa furayay maxaa lahaay jid kaloo isku sii kala tuuray bo ilaa waa gaari waayey sababtay taa nin rag iyo dumar isku mid maaha marka sidii aa dhacday naagtiisa u tagay waxaa ku dhaabaayo oo taleefankeyga oo iga qaatay kaalay mar labaad oo taleefankeyga qaatay kaalay ila raadi ninka adaa taqaanid meeshoo galay ilaa adoo ku qabaayo markaase waxay igu tiri abaayo ani ma kula raadi kari mana soco kari xaamila ahay abaayo waxaa ku dhahay ma soconaysid moota anaa ku saaraayo intay doontaa igu noqoto ninkaaga meeshuu joogo keliya ii sheeg markaasay tiri kuma raaci karo meeshuu joogana ma aqaano waaye han dhahay bakaaraa tagnay waa ka soo weynay xamarweynaa tagnay xamarweyniya haddana ka soo weynay isgoyskan oo shingaaniya isku qabanay markaa isku qabanay ilaa markiisa abaayo waxay tiri waa kanaa ninka asoo laba tagna oo furaayo samakaara oo ka bixinaayo samakaaradii oo meeshii laga bixiyey oo asoo ka bixinaayo mooto ee saaranta 4 nin ee ku saaran yihiin ilaa markiis waa baayo ku duuftay xidhaaday waa kana moobilkayga si adayga soo qaadatay moobilkayga oo baahana dadkoo dhan isku soo bixin xaa dhacay allahay wixii dhac noo sheega ee telefoon oo naga qaatay laba telefoon oo naga qaatay haddana telefoon iPhone iga soo qaatay waan soo gatay ninkan xaarba in ii xiro ninkii jijiidkii oo jijiidayay waa bixiyay mid kale oo asii saaxiibkiisa meesha lagu qabtay saaxiibkiisa xaadaan asigu wala socdo tuug qaris leewaaye asaana maxaa lahaay la socdo ninkan telefonkeena haddii ninkan la xiro telefonkeena waa heleena waayaha nala lahay saldhigaa nala keenay ninkii la xiray ninka marka la xiray ninkan kale asoo wuxuu imaaday oo geeda la cabayo oo la buufinayo oo gacmaha ku wato oo midna baca ay ugu jiraan oo dhahayo lafaa intii iiga dhumeen yaa arkeen wiilal dharcadaa arkeen wiilasha dharcadkaa markii soo qabteen asoo lasii wada aragnay anagoo meesha kasoo baxnay oo xaafadda usii socono waa laabanay ninka miyaa ninka telefoonka kaa dhacay waay haa waay asi waaye samboy allahaa waay hayuu yiri wiilka sidiyaa marka nalagu xira samboyge markii dambe hooyadiisii imaadeen marka xaadhaan maamoy telefonkeena u baahannahay lacagteenana waa u baahannahay maxaa lahay maxaa xal ah markaasay igu tiri waa isku soo laabanaynaa waayaha ku dhahay iskuma soo laabaneen daraada maxaa lahay isku imaaday saldhiga markuu wixii tiri hooyo aan waxaa haay ma lahan waxaan niga tuugayaa inay wiilkayga iska cafisiin xoolahoo nigu leeyahayne macnaha iska cafisiin ilaa anigu wax ma haaye markaasaa waxaan ku dhahay markuu xoolihii qaadinaya tuugnimo igu qaado maya abbaay isiimo igu qaado waa maya tuugna looma naxariistaa ku dhahay ani teleefonkayga hantideeda waa u baahanahay markaasay tiri haddaa u baahan tahay maxkamadda tag maxaa lahaay ka dhac sacadkaaga marka waxaa u baahnaa lahay teleefonadeeda iyo lacagteeda in dowladda ay ii soo dhiciso تليفون ما كان بس العاكم هذا تليفون guriga iga degnaa jiray $7 ku leeyahay laba mobilna way iga maqan tahay guriga soo deg asig guriga gabadha iga soo degtay gabadha markay waxay tiri ninkayga waa inuu qabaa meehay ani gabadha ku guriga kiristay kabacdi gabadha waxay tiri garoobaan ahay waay ha ku dhahay maxaa lahaay habeenkii arkay ninkan oo soo hoynay 4 saac maray tahay ina u galaa ha ku dhahay ninkan maxaa waa ii soo hoynay ilaa maxaa lahaay gabdhahayga anaga leenahay ninkaygana waa maqan yahay waa og tahay markaas waxay dhahday abaayo anoo i qabaa ninkan degmada maxay ugu sheegi weys markaa ku geynay dhihaysa garooba ahay maxaa u dhihi weys naag la qabaa ahay abaayo dib ma ii soo jiiday waay degmadii u laaban xaa dhahay ani dadka misaan fiicino ina iga rirtiina rabaa markuu waxay igu dhaheen bishaan ha u dhamaato waa laga raraa degmadii waa yaa Boondheere gudoomiye ninka la yiraahdo yarka xagga fadhiya wuxuu ii imaaday maalin oo khamiis ay tahay 11kii bisha 11aad 2025 wuxuu yiri waxaan rabaa u dhahay iPhone 15 Pro Max cusayba ma haysaa u dhahay waa hayaa dhahay iPhone 15 Pro Max cusayba markii aan taleefanka u sheegay wuxuu dhahay ii soo bixi oo u soo baxshay iPhone 15 Pro Max waa u furay simakaaro geliyay mobilka uu iska fiirino biyo galay waa afufay simakaaro gashtay markuu simakaarkii geliyay wuxuu wacay gabar u dhahay ani xaaskeyga waay gabadhii markuu wacay wuxuu dhahay lacagna waa ku heshiinay $850 ku heshiinay taleefanka cusubka waa qaadanaa u dhahay laakiin xaaskeyga si rabaa intii ka imaanaysa cabaar usug sidii markaa ku heshiinay
تليفون اسكو وعي ايضا وعي تليفونka wuxuu fiirinayay fiidiyaashu isku fiiriya kaamirooyinka wax dhan oo fiirsaday cabaar ila taagnay ani lafteeda xoogaa marka way soo fidin marka hore way soo taagneen marka ninka markii ilaa wuxuu igu sugaa chance ani ama ku foorarsado ama qof igu imaato dukaanka si oo asaga macnaha ilaa howl kale wata aan ma fahansin marka ninka maadaama mobilka u bari oo cusub u baraawiyay oo gabadha la hadlay oo tii waa soo socda oo Cabdilashide u tilmaamay danka ma aan galin macnaha ilaa markiis wuxuu ilaa wuxuu qadaray mobilkiga marka charger mobilkii ku jiray waa soo dhaca mobilka markaan saas u doontay muraayadana way ii xiran tahay kunfila igu dhagan subax markaan soo galo muraayada waa xirtaa marka waan ilaa aamni inta ka baxan maahana inta kama boodi karo muraayad waa yarka marka ilaamkiisu uu ila taagnaa dhinacaan u taagnaa mobilka video call ku hadlay cabaarba gabadho wacaa cabaarba ani kursiga aska fadhiista marka hal mar marka taleefanka soo dhaca hoos asu deeyay ninkii waa waay intaan xayaa muraayada ka dhac albaabka sida ugu booday banaanka markaas uu istaagsaday wax meesha jooga male aaga waa fiiriyay anoo kabla ana banaanka bax wiilala banaanka fadhiyeen saaxiibyara soo yara inta soo baxada ma aragteen nin walba wuxuu dhahay ha ku dhac warniyo yara mobile ga qaaday intuu banaanka mar fog soo yeeray dadkii suuqleyda meelaha waa fiireen hal xabba waa iska soo baxay dukaanka ku laabtay meesha waa xiray waa baxay saldhig axmar weynaa tagay waxa dhaanay qaabkaas wax u dhaceen yaraana mobile ka gaday saas uu igalay sawirkiisa meelay dhaheen sawirkiisa qad ka raadiyay bej TikTok oo leeyahay waxa jira saan bay ugu qoran tahay fiidiyaasha waxaan tusay taliyaha saldhiga oo xamar weyne marka tusay wuxuu dhahay niyahow yarkan way raadiyeen galabtii soo wuxuu dhahay xamar jajab waa inaad tagtaa u dhahay sababta wuxuu dhahay ninkaas xamar jajab aan kaga sheego dhahay oobi waa inaad soo gelisaa u dhahay haddana xamar jajab haddana soo geliyay waxaan haddana maalmo kadib raadino boon dheera laga sheegay waxaa la dhahaa waa inaad boon dheera tagtaa haddana oobi waa inaad gelisaa ma fahmino intaas meel markaa soo laabtay waa iska soo laabtay waxa kulleeyta askarta waxay dhahay liida laga sheegay dhahay ninkii وانا كويتمناد بشي كويتمناد لبا كلاتي شنت الا marka waa raadinayna macnaha waxa raadiyay wax oo xamar kii Cabdicasiis jooga Cabdicasiis taliya midka baaraha fadhiyo waxa dhaaniyo qaab noocaas dhacay ninkaas wareenta u diray waxa adika dhankiina imaada Allah wuxuu dhahay hadii aan helno oo kula soo xiriireena ana hadda dukaankii maal dhow iska jooga waxa soo wacay taliyaha saldhiga xamar weyne wuxuu dhahay ninkii rabtay imaa uu dhahay saldhiga Shangaaniya tagay uu dhahay ninka adiga rabtay haduu noqdo waa la gartay haduu noqo waayana hadda asaga maahan Shangaaniya xaatiga 12 saac asagoo jooga markii aan baarayaashu u tagay waxay dhaheen ninka raadinayso sawirkiisa hortan tus waa tusay yar Muuse liiraa joogo fiiri wuxuu dhahay sax waa u ninkan waa haynaa asaga loo waa xalay ninka ma taqaana wuxuu dhahay waa aqaana ha mistaqaanino ha waxa lahay ani markaas waxay iga qoreen information iga qoreen maadaama ani Shangaani ana waxba ana dhigin saasi barax ku dhahay marka wax yara ka tagay gabadhii ay imaado oo mato ku socota oo wacay gabadhii waa qabtay yara la ishtaa xiriyaha saldhiga tagaa saldhiga waxaan soo jirta waxay dhaheen gabadha maadaama wax aanaka ku haynin waxay tiri gabadha walaalkiisa jiray tiri hooyadiisna waa aqaanahay tiri way ku xiraay tiri saasa ayna marka la baradii wixii looga qoray waa gabadhu qabdi gabadha wuxuu dhahay waa qabaa u dhahay adiga hore u aqoon jirtay miya ma aqoon jirin hadda ka horna asay gabadha ay imaadeen igu dhahay ayagoo markaas suuq telefoon ay wateen waa gaday gabadha gadaysa asoo gabadha waa la socda asoo laakiin gabadhu la socda saasa marka meeshiidaba aniga ay dukaankeena ku imaadeen telefoon iska gadeen ha markaan bishan bila ka horeedo waa telefoon iska gadeen saasoo haddana igu soo laabtay wuxuu dhahay telefoonka hadda ka hor gadi jirnay gabadhii hadda telefoon u gadaa $380 ka sii adi marka mobilada ma gadaa ma soo gadataa aniga mobilada ku cusubna waa gadnaa celisna waa gadnaa marka qofka oo mobile ku bedelaayo waa ka gadanaa marka asaga way iimaadeen waxay dhaheen kan waa iska gadaynaa waan u bedeli kartaan miya marka qofka mobile kan oo kale oo keensada 15 oo 16 qaaday kana lacag loo xisaabaa ka cusubka loo furaa jaawnika way imaado wuxuu cusub ii fur samboy magacaas in la dhaho oo TikTok leeyahay ku sheegay adiga aniga gabadhii ma qabano sawiraanta laga baad anaga gabadhan cadeymii dhama waa ka helnay lambarkiisa wixiisa dhanna awal lambarka laakiin gabadhan lacag ugu dira asagana waa la socdaba gabadha marka qabtan waxay dhahday waaba kana sawiraanta ani saldhiga sababta wuxuu dhahay ninka qofka sawiraantiisa la iska rabaa ay dhaheen marka page-ka TikTok galnay samboy asagoo fiidiyaal ah soo dugsaday laakiin ninka wuxuu leeyahay waa macaamil jirnay wax uu leeyahay ما مقدرين هل مرة ما ذن أسيح حاسس كيسنا واي قبلنا مركي ضمنا وحده أيضا حقدا سادان أقون إكلسوني أكو قبته أيا تلفن كأتجدي سي وجدتي ساسا أوسي جست ما دام أقون لنا أقول له هاي وأنا كاتب مني لا أكتهاي أقون إكلسوني اللي قف هذا وين قناع الصدى هاي تلفن سيجمد يبت من سي جسنيس سادان أقون هوري معامل هوري ونحمر أويت أيا تلفن وجدت سومان وجمد يبين qofka hadduu ku imaado oo mobilka furo waa inuu baraawaysto waqtigaas sida lacagtii aad sheegtay saadama u turtay
oo taleefon kor kaaga gatay 200 mar u turtay 180 waqti kale u turtay Soomaan waqtiyo kala duwan ayaa u turtay Soomaan lacagta ugu lahaa haddaan soo bixinaa inaa hal waqti wada diray lacagtaas qaabka u dirtay maxkamadda u faahfaahiyay iyo taariikhda iyo waqti muddada u dhaxaysay inaa taariikhda soo ogaado waa mudane gudoomiye gabadha waa ii imaaday anikaas aadaan ma baana ka wada hadlinba gabadha markii aan ii imaaday mobile la heshiis 380 suuqay soo mareen ana lacagta ugu badnaa gaaray ma fahanti lacagta markaa gaaray gabadha waxay dhahday $250 ii dir ma fahmino iska gadi maayo baalkii guriga kire ku joognaayay gabadha sidaa lacagta ugu diray markaa u diray maalin labaad ii soo laabtay asii walaalka gabadha iyo walaalkeeda iyo asaga sodona ii imaadeen waxay dhaheen inuu lacagta ku micli karnaa inoo wada dhameystir bartaas ani saadaamna oo ani markaas iga arkay تلفون عصابة برنامج كسمه بكون شيرين أسميد كلام برنامج كأصله يسودك سيد موجين عصابة كمركا موبايل كقضايا أو مركز كقضايا أو وحي أهش إنك بعد أدنى حول هاي قبرنا وقضاء حاس كيجا أصل اللي بيصير محاكاة وضع معناها قف مو كم معناها كشكي معناها قف وقد كرو أجيا معناها كوي مانايو ما نسدي قف كان معناها ما أكو قاضي مو كبقى حتى محاكاة مقن هذه مركز أنا واحد أجمع قن تلافك سديد بقول لك كتك الدورة كل شيء عصابة أجمع قن النمبر كيس محلي يا تلف كاس ايفون 15 برو ماكس سديد بقول كنت دول مركز جوجي سديد بقول كنت دور العجب او جوجي مركز هذا ما سنت ابراهيم سكفريس ويلا اي مال سلام الله موبايل يقدو ده معنا ديار waa dhahe موبايل nooc rabta موبايل ay kuntan ila xaraabo dhahe oo 200 kuntan ila GB RAM 12 diyaar waa dhahe waa موبايلka soo bixiyay موبايلka siiyay oo u babarooway موبايلka da u babarooway dhalay iyo qolof iyo waxyaabo soo saaray waqti badan oo ila joogo asaga markuu موبايل ku hadlay wuxuu dhahay lacag soo tuur gabar amal gabar oo gudo dhahe fahamno lacag soo tuur adii 40 daqiiqo amal ila joogo marka 40 daqiiqo amal ila joogo qofkii lacag soo tuur la amal xilli salaadeen oo casar aadeen marka dukaanka laba qof dib ku joogna ani mid kale joognay midka kale marka waa soo xirxiriyay albaabada oo dhahay casar aadina soo bax maxamed diyaar waa dhahay yarkana lacag ka sugaa oo موبايلka oo xirxiro oo hawey wax dhan oo sameeyay marka uu sameeyay wuxuu dhahay marka lacag tuur hadaa dhahay diyaar oo dhahay موبايلka hol lambar geliyo dhahay lambarka geliye hadaa geliye موبايلkii oo qaatay wax bin gelina iska dhig lacag fiiro dhahay albaabku ka baxay albaabkuna ugu soo laabnay marka ani موبايلka inta fiirnay ninkii ma joogo wiilku waa macna dameela orde waa meel uu ka baxay waay kaamirooyinkii waxyaabo fiiriye oo meesha intuu ila joogo horta kaamira caadi ah lagu arkaa kaamirada dukaanka banaankeeda fiiriye mootofeekon u taagneed marka mootofeekontii ee raaceen uu ku orday uu ku booday waa fakay marka intaan u jeeday macnaha ma iga ordin intuu albaabka baxay laakiin markuu albaabka ka baxo aan iga qarsoomo orday oo mootofeekonta dub ku dhahay macnaha uu ku booday intaas dhacay saas waa dhacay lacagtiin igama tuurin macnaha هذا دكان لا تامين دكان لا سوق بعد هذا دكان لا كتا مركي ما كان مغنى موبايل كنت لي حاجه مغنى كنت لي حاجه شكو قصت موقالك قبت كاميرا كاميرون قبتن ninkaan nin saaxiibkiisa iyo familkiisa oo ay keen mootada qaab loo wareejin oo jirta loo qaab loo wareejiya qaabna noo tahay inaa martin qaabna qofka familkiisa iyo wixiisna aqoonsatid sidaas aan mootada ugu dhiibtay sidii aan ugu dhiibay familkiisa iyo wixiisa aqoonsaday gurigiisa aqoonsaday asaa aqoonsaday sidii mootada ugu waday mootada ilmaha loogu shaqeynayay kirada ka soo tuuraadina ilmaha leedahay ilmaha ay ka biilo sidaas aan mootada si ugu wareejiyay adig maxaa qabataa ani hadda ma shaqeeyay jaamacada dhameeyay laakiin waa soo shaqeeyay laakiin hadda ma shaqeeyo معك شغل جديد IT برت software development يا قد موتada ana haaf lacagta ku lahay oo hideeda haaf kale ugu gadanay hooya gadan hooyada ma joogtaa fadhi of dhisa maxaa rabtaa marka maxaa codsanay waxa codsana maadaama ninkan markii oo iqshiida aan liiga soo wacay waxa la dhahay mootadaada waa u maaday darawalka mal raaw ninkan mar hore mootadeeda ka qaat darawalkii hore laga rabaa Soomaha dhaay waa baxay darawalka waa la shaqeeyay raaqad gacan siina ka qaatay maadaama wada jir u degnaa oo iqshiid iyo ka soo qaban karin ani asaa face to face ku aragnay waa soo qabtay iqshiida ku soo simay maadaama aan hadda oo la shaqeeyay dawladda la shaqeeyay oo ninkii tuugaan ku soo simay waxa codsanaa in oo mootadeeda ah helo dokumenti mootada yaa ku qoran anaa ku qoran markaad maxaa leh waraaqada waxay haystaan oo jidka lagu maray buugiisa anaa wato dokumentiga mootada feekont waxay leedahay waraaq jid marid ah iyo buug bis buugga waa kana marka inta waxa ku qoran taargadii wax ku qoran taargadii magaciisa saddexan informationkii ku qoran wada marista iqshiide taala iyadoo hadda originalna waa haystaa laakiin muddo oo bacda ku jirto nadiifta iqshiide taala
dabalista yaa qora traffic ma qorto kuwa faykonta ay soo gadaya soo siiyaan faykonta marka la soo gadaya lagu siinaa xeerali markii la isku hubiyo kadib hala siiyo mootadiisa inka adaga xeeraliha u dhib asad ay adiga maxaa tahay maxaa qabataa horta nin ganacsadaha cabdirashiid meerad ku leeyahay moobeelada cusubkan waa iibiyaa ciriskan waa iibsadaa arrintan kaada marka arrinkan maalina waxaa ii imaaday ninkaas moobeel oo ii sheekan watay moobeelka waa ii keenay waa ku heshiinay moobeelka abraac la mas-uuliyay abraaciyaa marsiistay waa iska barooweeyey markuu baroowada iga baxay telefoonka restaurant isaga diraa oo qolo waxaa jirta moobeelada xirato oo sanaabiil dhahay qofka markaas aan gadanayo waa la weydiiyaa oo waxaa la dhahaa moobeelkan restore ma isaga diri karaa hadduu haa dhaho restoorka isaga dirnaa hadduu may dhahona waa restore uma dirna oo telefoonkiisaa siinaa markii aan heshiinay oo aan barooweystay baroowada iga baxay telefoonka restore iska siiyey kadib lacagtiisaan siiyey restoorku macnaha waxaa waaye miya haa macnaha lama xiro karo moobeelka moobeelo waa sanaabiila jirto qolo la dhahayo oo moobeelada xirato marka moobeelka markii la keeno oo aad barooweystid restoorkaas inaa u dirtid mar walba muhiim waa haddii restore isaga diri weysa adoo kaa xirmaa lacagtaada khasaarey noqonay meeqaasiis asaga si lacag 250 muxuu kuu sheegay adiga asaga waxba iima sheegin moobeelka inuu iib u yahay bis wax kastoo iibo magaday ama iska fiirinay moobeelka waa iska fiiriyey waa furnaa markuu inuu furan yahay aan arkay oo nadiif yahay waa heshiinay waa iska barooweeyey markuu baroowada iga baxay kadib waa lacagtiisa u diray waana wax xiran iyo waxaas meen cabdirashiidee muxuu yahay wax la dhacmaa lagu gataa mise wax celisi waxaas maxaa lagu sameeyaa maya moobeelo celisi aniga gataa cuseebna waa gadaa shagtiyaan leeyahay meeradaan leeyahay marka moobeelada celiskana waa gataa hadday nadiif yihiin oo aysan xirnayn waana sii gadaa hadda maxaa kaa maqan hadda lacagaa iga maqan aniga moobeelkaas kii uu kaa gaday laftiisi miya moobeel asi lamid waa ay konti lix waa hadda marka waxaa kaa maqan lacagaa iga maqan waa 250 anoo shaqadeeda ku jiro waxaa ka shaqeeyaa suuqa cabdirashiid moobeelada gadaa moobeelada celiska caadi qofka oo danta iskay gadaayo gadaa ku cusub ma gadaa kuwa cusubna waa gadaa celiskana waa gadaa marka anuu shaqadeeda ku jiraa waxaa ii imaaday nin moobeel iska gadaayo oo caadi oo shacab iska ah moobeelkana iska gadaa iga gado moobeelkiisa kurtku iga furay sawirkiisa u saaran wixii waa ka baroowi waa fiiriyey waayahay ama macnaa dhib kale uu iga imaadaa camal may xaaskayga iga xanuunsana u gadaaba saas darteeda dantaas ay haysato iga gado waa ka barooweystay moobeel kale isii u dhahay lacagna macnaa isii xoogaa lacagtii iyo moobeelkii marka sidii ku kala baxnay meeqaasiis waa $200 kaash ah iyo moobeelka oo $75 moobeel oo u bedeshay miya moobeel kale oo Samsung asiisi macnaa lafta macnaa inta ku isticmaalaa ma jirto marka moobeel kale oo sii shito iyo sii gadaba maadaama kan ay gadanayso kan iyo lacag rabaa macnaa moobeel kale iyo lacag moobeel iyo $200 siis marka moobeel iyo $200 moobeelkaas marka isla moobeelka uu ka gaday miya kaas iPhone ka uu keeno kala soo gadadne kan uu ii keeno ka gadanayo kii naftirkiisu kii gabdhaha lahaayeen mid cusub ma gadan asaga waa maxaa ka maqan marka ani marka $200 iyo moobeelka kale oo $75 u xisaaba $275 ka maqan ka $75 u xisaaba waano moobeelka waxa laga qaadanayaa sadad waa isla asaga lacagta $200 ninka hore muu taqaan sadad may maalintaas iska horeysay kaligiis mu ahaa kaligiis waa cidna ma la socon cabdirashiid joogto bakaara magacaygu waa asluub sheekh axmed baaraha saldhigga booliiska shangaani taariikhdu markay ahayd 11 bishii 2026 5 saac subaxnimo waxaa la soo xiray eedaysana Sadaam eedaysanaha markii la soo xiray waxaa imaaday saldhigga laba gabdhood oo dhibanayaal ah oo lagu kala magacaabo Faa'iiso iyo Naciima waxa ay sheegay inuu ka soo qaatay moobeel iPhone 15 iyo A16 eedaysanaha waa la waday waxaa loo geeyay ganacsade Saalax oo dhibana ah oo uu ku qiyaamay moobeelka oo iskaga dhigay inuu asaga leeyahay una ka soo gatay Saalax waa la soo waday waxaana laga qaaday moobeelkii iPhone 15 ka ahaa oo ay lahayd dhibana Naciima halka A16 oo hore u cunay sidoo kale eedaysanaha waxaa la keenay maxkamadda taariikhdu markay ahayd 14 bishii 2026 maxkamadda waxaa nagu wareejisay
dhibanayaal kale oo laga soo wareejiyey maxkamadda saldhigga degmada Yaaqshiid kuwaasoo kale ah Ibraahim iyo Maxamed Xuseen. Ibraahim wuxuu ka dafay si farsamaysan mobile iPhone 15 Pro Max. Maxamed Xuseen dhibanahaas wuxuu ka qaatay isagana konton 6 iyo samcad isagoo ugu tagay suuq bacaad. tookada oo qaadanay mobile konton 6 iyo samcad waxaa la socday eedeysanaha labaad Maxamed oo ay ku soo heshiiyeen in ay wax wada dafaan. wuxuu u qaabilsanaa wadida mootada Motofecom M5V32 oo uu leeyahay dhibanaha halkan fadhiya kaasoo u maleynaya inuu si caadi ugu shaqeynayo san la wadaagin inuu fal dhac ah ama fal farsamaysan ah uu ku geysanayo. eedeysanayaasha markii la baaray waxaa noo soo baxday baaristii booliiska in ay galeen fal dhac ah cabtooynimo ah dalka iyo dadkana ay khatar ku yihiin. sidoo kale eedeysanaha labaad wuxuu cadeeyay inuu markaas la socday oo na ka qaatay lacag $100 ah si heshiis ahna ay ku wada socdeen falkaas inay ku wada galaan markii la soo qaatay iPhone-ka mobilka ee 16 samaacadana mootada kacsan oo u diyaarsan inuu kula orday cadeyntana waxa laga arki karaa CCTV kamerada aan la wadaagna xafiiska xeer ilaalinta. sidoo kale waxaan keenay maxkamadda horteeda mobilkii iPhone 15 ka ahaa oo ay lahayd Naciima si lamid ah mobile A24 oo isagana loogu lacageeyay qayb kamid ah mobilka lacagta uu ku gadanay mobilada mid kamid ah. eedeysanayaasha halkan fadhiya eedeysana Saadam waxa waay askari police ah sida uu noo sheegay kan kalena waa nin shacab ah labadoodana waxay ku wada heshiiyeen inay wadanka dhibaato ka geystaan mobiladana ay ka dafaan dadka. sidoo kale Naciima falka uu geystay waa fal dhac ah sababtoo ah waa qof dumar ah oo nugul ah waxa ay sheegtay inuu gurigeeda u galay qoorta ka qabtay xoog oo uga qaatay mobilka awoodiisa raganimadana oo uga orday maadaama aysan qaban karin. wuxuu cabay buufin iyo wax suujin ah oo aan maxkamadda hor keenay kuwaasoo lagu sameeyo waxa waa suujinka lagu sameeyo AC-ga mukayfka. lacagta lambarkii loogu tuuray Maxamed Cali lambarkii maxkamadda ma loo wadaagi kartaa lambarkii Maxamed uu watay lacagta $100 ee asheegta loogu tuuray baaristaadii gungaarkaada haddii aad ku qortay maxkamadda la wadaag. eedeysanayaasha ma haystaan mobile sababtoo ah waa dad tuuganimo u diyaar ah iyo dhac. waxaa sheegtay maadaama baara aad tahay eedeysanayaashan inay dembiga wada galeen wax cadeynayo oo dukumiinti ah tusaale ahaan lacagay isku tuureen taleefanada lacagay isku tuureen EFC waxay isdhaafsadeen aad baaristaada ku ogaatay haddii ay jirinna ma jiraan wax falka abaabulan ee ka dhaxeeya labada eedeysane waxaan ku ogaaday kaamirada oo soo qabatay qaabka ay wada qaateen. kaamirada marka laga soo tago iyo qiraarka marka laga soo tago wax adiga EFC ah ama lacag isku tuureen oo aad heeso oo baaristaada ku ogaatay ma jirto Soomaaliya. ma arkin EFC ay isku diraan. eedeysanayaasha waxaa lagu soo qabtay baashana lagu soo qabtay oo maxkamadda hadda hortaal caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa qaboojiyaha baalkaas in lagu shubo iyo baabuurta air conditionka loo adeegsadaa macnaha sida caadiga ah laakiin eedeysanayaasha waxay u adeegsanayeen qaab daraagis ah oo waxay sameeyeen hadda buufintan waxaa ku jirto baashana lagu shubay marka meeshaas afka ay ka dhuuqayaan waxayna ka raadinayaan sakhradii ka raadinayaan sakhrada marka aad caadi ugu golgareyso caafimaad ahaan khatarta ay leedahay markaad weydiiso waxay ku sheegayaan inay caafimaadka aad khatar uga tahay oo ay sababto dhimasho degdeg ah marka qaabkay u isticmaalayaan raba maxkamadda inaan u sharaxo. si buufintan loogu shubo buufinta waxaa la gelinaya inta la gelinaya saasaa loogu shubaa marka waxaa la sameynaa halkaas afkaa laga xiraa si tartiiba marka qofku dhuuqaa hadda waxaa ka buuxdo hawada marka caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa oo loogu talagalay inay qaboojiso baabuurta iyo mukeefyada iyo loogu talagalay laakiin eedeysana Saadam wuxuu u adeegsanaa inuu ka raadiyo sakhrad marka gogolgareysan waxay ku leeyihiinba waa dhimasho degdeg ah waxay sababtaa oo kale sakhrad zaa'ida
sidoo kale qofka ciyo wixii gaarsiinay daraagiska uu rabay iyo sakradii uu rabay degdeg ku gaarsiyaa lagu leeyahay marka arrin qatar ah oo ku cusub waa magaaladan oo eedeysana saadaan lagu qabto waa gudoomiye marka bahaladan oo watay wuuna dhuuqay marka saameynta waxyaabaha ay sababayso waxaa ka mid ah gaaskan wuxuu aad oo degdeg waa ka degdeg badan yahay inuu sakrad ku gaarsiiyo degdeg uu badan yahay marka xashiishka loo eedo dhexdhexaad waay in si cinyooba oo dabiici ah ku hesho sakradda macquul maaha khamrada sidoo kale asi laakiin si degdeg ku gaaraya lagu leeyahay sidoo kale daqiiqadaha uu qofka ku saameynayo uu qofka ku noqonayo qof daraagis cabsan oo ka dareemayso waa daqiiqado degdeg ah oo waxaad dareemaysaa in daqiiqada qofka uu dhuuqabo hore inuu ka sakramayo oo sakradda ay hore ka gaarayso balad ahaan wuxuu saameeyaa jirka iyo maskaxdu saameeyaa halka khamrada ay saameyso maskaxda laakiin kan qofka cabaa oo muddooyin badan wada waa ka dareemay jir ahaan iyo maskax ahaan ka dareemaysaa baashan marka waxa loogu shubayo waxaa waaye haddaan baashan saan loo dhuuqi karin waxay xoogaa u heynaysaa ee u qafiifinaysaa baasha soo gaaraysa si hadda dabiici ay ku socotaa waa la dareemay marka afka ay geliso waa dareemay maadada marka aad baarto waxay ku leeyihiin waxay ka khatar badan tahay daraagiska kaloo dhan oo dhimasho degdeg ah ayay sababtaa marka aaladan uu isticmaalayo booliiska Soomaaliyeed waa ka tirsan yahay caafimaadkana waa jooga hoggaanka caafimaadka oo waxaa loogu talagalay wacyigelinta bulshada inuu khataraha uga dego hoggaanka caafimaadka uu dhaw waxay ka shaqeeyaan waa caafimaad laakiin asigaa khatarta isticmaalaya oo gacantiisa ku isticmaalaya oo lagu soo qabtay ka barteeshkan galina muddo eedeysana saadana laga qaado oo wata buufintaan uu ku watay oo la dhuuqay hadda buufinta anaga sameeyno meeshan waa Xamrweyne waa dukaanka Ibraahim uu ku leeyahay suuqa Xamrweyne oo uu galay uu ka dafay sandaqadaas hoose meesha computer ku yaalo ayuu ku leeyahay dukaan mobilada lagu iibiyo mobil 15 aan rabaa fiiri inta iska fiiri dhagaa iska baroobay sanaacada baroobay hebelo isoowac inta sheekaas lagu jiray oo baroobada lagu jiray wuxuu fiiriyay attentionkiisa markuu inuu mashquul u arkayna uu ka orday Ibraahim laamaha amniga iyo degmooyinka kala duwan ayuu ka dacwooday si uu helo xuquuqda uu ku lahaa mudane gudoomiye goobtan waa goobta lagu qabtay eedeysanaha isagoo wato alaabahan sakradda ah ee gaaska ah ee uu adeegsanayay inuu isku sarqaamiyo waa Shangaani Maxamed Dheere ayaa lagu qabtay ciidanka nabad sugid ayaa qabteen goobtan waa suuq bacaad mudane gudoomiye waa dukaan meeshaas ku yaalo electronic lagu gado oo dhibane Maxamed uu lahaa meesha ugu tagay sidoo kale uu sheekay xilli salaade ahayd oo xilli iska mashquula mobilku ka dafay motor raac marka waxaan rabnaa kaamirada maxkamadda u shidno meeshan waxaa la helay kaamirada la helay goobtan saa u jeedin waa suuq bacaad laamiga suuq bacaad waaye mootadii waa taas notify konti Maxamed ninkan waa ka dagay halkaas waxaa ka dareemaysaa inuu Maxamed ku sugayo ninkan marka eedeysana saadaan wuxuu wataa jaakad sarwaal wuxuu garabka waxa u saaran boorso baasha buraashada oo cabid biyo lagu cabayn uu wataa taasoo cadeynayso in uu iska dhigayo nin diyaas bara ah si uu dadka u gaado mootolii waa ka halkaas ku suga dukaan galgal rabo dukaankan waa marka meeshan waa dukaankii dhibane Maxamed wuu soo galay eedeysana saadaan waa kaas wajigiisa haddoo dhihi lahay kaamirada ima qaban kaamirada caadi u qabanaysaa waa asagii oo meeshaan taagan buraashadii cabitaankan uu wataa eedeysaniin waa sugaa macnaha si la iskugu aadinayo eedeysaniin meeshuu ku sugaya macnaha ilaa uu ninkan wax soo dafuu sugaa mar labaad wajigiisa lagu soo dhaweyn doonaa waa kaas waa saadaan oo meesha taagan gorgortana ku jiraa mobilkii dhibane Maxamed ka maqnaa ayuu la gorgortamayaa kadibna uu dafi doonaa marka gorgortanka bacdi waxaa maxkamaddu geey doonaa anagu waqti ka luminaynin mootolaha qaabka uu soo galay marka mobilka soo dafo eedeysana saadaan uu soo ordi doonaa mootada wuxuu ku fuuli doonaa qaab aan caadi ahayn hore loo arag waa kaas karow miyaas leedahay hal mar ku boodaa dhulka hal mar ku leeyahay qaabka ugu boodaayo mudane gudoomiye inuu sugaayo
waxaa ku caddeeyaysa eedeysana maxamed qaabku u taagnaa iyo markuu soo galayba qaabku waa u koray hal mar qaabka u koraayo maxkamadda ay la aragto inay isfahansan yihiin meesha kaga caddeeyayso waa kaas qaabkaas ugu booday marka qaabkan ugu booday kadib nimankan waa ordeen shilay galeen shilki waa kasii ordeen dada hatee dhaawac u eed nimankan oo iska cafiyey mooto saasay ordaysaa mootoolaha marka ma marsiyo uma naqanayso ma ogeyn maxaa yeelay heshiisaa jiro agreementaa jiro intee ku geeyaha meelaha kugu geeyaha $5 $2 $3 isma dhihi meeshaan baashan waa diyaarsaneed tug waxaan mar ku dhaninkaan mudan gudoomiye waxaan rabnaa inaan maxkamadda dana u geyno marka la joogo suuqa bakaaraha dukaanka qaabkay ku soo galeen waa kuwaana saadaan waa kala dane markaan moobilkii oo soo badsado wataa wuxuu u socdaa saalax si uu u gado moobilka gabadhii ay lahayd naciime ay lahayd si uu u gado cabdishidiye hore ka tegey waa kaas asigoo ugu tegaayo xaruntii bakaaraha markaana waa markuu la gorgortamaayo saalax waa kaas fanaan cagaarkaa waaye sirwaalka wato kaamiraha kor u kacsanay maan laakiin asiga waaye maxaa caddeehaya midda ka koraysa caddaynayso oo ah dhar cagaarka inuu asaga yahay waa kaas saadaan waaye caadi asaa isfahmaayo saadaan mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh xafiiska xiraalinta wuxuu ku dadaalay in la horkeeno maxkamadda muwatafee kootan oo uu leeyahay dhibani asniinta ka hadlaayay ugu dhiibay inuu si xalaala uga shaqeeyo laakiin si xaaraana ayuu ugu shaqeeyahayay oo waxa aragtuu ka shaqeeyahayay eedeysanaha labaad waa maxamed cali eedeysanahan wuxuu qayb kala ahaa 100% dhici uu geystay iyo xatooyadii iyo dafitaankii uu geystay eedeysana saadaan waa ninka ka fukinaya ee inay laamaha amniga arkin ka shaqeeyahay waay eedeysanahan wuxuu ka khatar badan yahay marka saadaan uu ka khatar badan yahay maxaa yeelay wuu la ordayba ninkii uu la orday ilaa meesha uu rabo geeyahay waxaasna wuxuu ku qaadanayay lacag tirabeel uu ka qaadanayay waxaa waa darawalka mootadan oo hadda milkiilaha soo sheegaayo ugu dhiibay si irshaq xalaala inuu uga keeno laakiin qaab xaaraana ayuu uga keenay maxkamadda maasantaha waxaa maxkamadda hor keenay naciime yaasiin aadan oo iyadana maxkamadda ka hadashay wixii ka maqnaana sheegtay sidoo kale dhibane ibraahim xasan cabdulaahi ayaa maxkamadda hor keenay iyo dhammaan dhibanayaashii ay dhibaateeyey eedeysana saadaan sidoo kalena uu qayb kala ahaa eedeysana maxamed cali maxamed mudan gudoomiye intaas kadib xafiiska xeerlaalinta wuxuu ku soo eedeeyey 484 maxaa yeelay saadaan waa askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan hogaankii caafimaadka wuxuuna adeegsanayay waxyaabaha aan soo bandhignay oo caafimaadka liddi ku ah caafimaadka ka soo horjeeda waxyaabahan caafimaadka uma fiicno laakiin asiga wuxuu ka tirsan yahay hogaankii caafimaadka loogu talagalay in ummadda ka waaniyo waxyaabahaas mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in eedeysana saadaan ay ku xukunto magta dhibanayaashaas uu xaday moobeeladooda ka dafay dhammaantoodna maxkamadda aan soo gudbinay sidoo kale ay ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay waxyaabaha ay dhigayaan maxkamadda waa maasantahay magacii waa abukaata cabdullaahi cabdiraxmaan qareenna u ah eedeysanayaasha maxkamadda horjoogo ee lagu kala magacaabo saadaan cabdulaahi cali iyo eedeysanaha labaad maxamed cali maxamed mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida wuxuu ku soo eedeeyay eedeysanayaasha aqreen ku ahay qodobka 484 oo ah oo wuxuu ka hadlaa dhac mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh xafiiska xiraalintana ma uusan cadeyn dhaca shuruudaha uu leeyahay waxaa ka mid ah in qori wax lagu dhacay in maaragtay qasab uu jiro in macnaha tooray ama midi wax lagu dhaco ama qori wax lagu dhaco xafiiska xiraalintana ma uusan keenin mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha koowaad saadaam cabdulaahi iyo dhibanayaasha maxkamadda loo keenay gabdhaha waxaa ka dhexeeyay khilaaf hore mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxay sheegeen guriga inay wada degnaayeen asiga iyo guriga ay degnaayeen asiga xaaskiisa gabdhahana ay la deganaayeen dad is yaqaanan ay ahaayeen
مدن قدومي قرصور المحكمة شرفت له قفك يقانو وهذنا isla degneedeen muddo asla nooleedeen in aad wax ka dhacdo ama aad wax ka xaddo adigoo waa wax macna wax dhici kara maahan saadaam hadii uu wax dhacayo ama uu wax hadayo wuxuu ka xadi lahaa dadka uusan aqoonin ama meelo kale magaalada ka baxsan wax ka qaadan lahaa mudane gudoomiye khilaaf ka dhaxeeyay iyo hantitiisa uu ku tabay ee xaaskiisa ka qaateen dhibanahan ay sheegtay in gabadha xaaskiisa ay telefoon ka qaadatay maxkamadda ay kor sheegtay in gabadhaas telefoon ka qaadatay xaaskiisana ay telefoon iPhone ka daftay maxkamadda ka sheegays xoolahaas ka maqnaay ayuu ku tabay saasoo telefoon u qaatay telefoonkeedana xafiiska xalaaliyaha uu hayaa hadir oo khilaafkaas mudane gudoomiye haddana inuu ku wareejiyo diyaar u yahay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta qodobka saddex labaad wuxuu sheegaa xeerka habka ciqaabta wuxuu sheegaa qof kaste oo waxyeeleeya ama carqaladeeya xaq qof kale isagoo qofka sharci ahaan xaqa lahaa uu ogolaaday ciqaab ma muteysanayo qodobka saddex labaad sheegaa mudane gudoomiye haddii dad khilaaf ka dhaxeeyay oo wax kala qaatay inaysan maaragtay mudane gudoomiye in aysan wax dambi ah aysan ahayn suuqleyda dadka markay deynta kala qaataan oo xoolihiis ka qaaday waayo dukaankiisa alaabta taalo qaataa xuliya wixii si waxaad ku sii ujeedada ugu soo qaadan mudane gudoomiye sidaas ahayd iyo inuu wax hadam ahayn mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh wax oo gabadha waxay sheegtay in lacag kira ay ku leedahay taas oo meesh ka saarayso waxay sheegtay sidoo kale in hal bilood ay guriga degnaayeen guriga qofka markuu imaanayo bisha ugu horeysa lacagta wala hormarsadaa hormarisa loo bixiyaa lacagta $7 guri kiradiisa way hormariyeen bisha labaadna waa ka guureenbo isfahamka iyo dagaalkii markuu dhacay waa ka guureen telefonkii markii ay ka qaadatay ayuu ku tabaayay xoolihiis inay siiso xoolihiina way u soo celi weysay saasoo imaatay inuu guri ku soo noqdo saasoo telefoon u qaaday mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh ee dhibanaha labaad Ibrahim iyo Saadaam haddii aan ka hadlo mudane gudoomiye Saadaam iyo Ibrahim waxay ahaayeen dad macaamilo Saadaam wuxuu guri maadaama guri ka guur lacag deen u baahday 200 oo deen oo ka qaatay Ibrahim 200 oo deenta ahayd telefonkiisa rahan u dhigtay taasna mudane gudoomiye garsooreyaal sharci waa ogol yahay rahan in wax la markay adeeg qaadato in rahan dhigto wax dambiya ma ahan sharciga waa ogol yahay shariicada islaamka iyo fiqiga waa ka hadlaa marka aad xoolo qaadanayso ama deen aad qaadanayso inaad rahan dhigato rahanta wuxuu u dhigtay telefonkiisa deentana Ibrahim waxay ahayd inuu deenta ka sugo Saadaam ma uusan ku sugin mudane gudoomiye wuxuu sameeyay telefonkii oo Ibrahim lahaay ayuu gaday $170 oo u celiyay Saadaam oo arinta ka xanaaqsanay imaaday wuxuu yiri mobilkii maxaa u gaday telefon kale oo marka inuu gato ku qasbanaaday lacagna maadaama uu haysan wuxuu yiri telefonkii ku soo qaatay mudane gudoomiye wixii dheeraada oo hadan inuu u celiyo diyaar u yahay Saadaam inuu wixii xoolaha ama qarash oo lagu lahaay oo dhinaca Ibrahim ku lahaay inuu iska bixiyo wix xisaab celin ah diyaar u yahay taasna mudane gudoomiye xatooyo ma ahan xatooyo waxa waa qof aan ku u jeedin ina wax ka qaadato waa Ibrahim ninkan aqoon hore isku lahaayeen lacagta laba mar u kala tuuro taas cadeen waa in dad macaamil jiray ahaayeen waxa kale oo cadeen ah in telefonkii uu ku aaminay oo iska shaqadiisa kale oo iska sii qabsaday sababtoo ah taasna cadeen u tahay in macnaha dad macaamil jiray ahaayeen mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Ibrahim Saadaam eedasana qareen ku ah wuxuu diyaar u yahay in wax kasta oo xuquuq lagu sheegto oo xisaab celin ah inuu iska bixiyo hooyadiisna waa joogtaa inay ka bixiso oo heshiiska hadda wax dhaxay u maray gudoomiye maxkamadda waxa ka codsanay in hooyadiis ay wareysato si wiilkeeda inay tuugnimo ku ogeed dabeecadiisa si looga wareyso mudane gudoomiye eedasana labaad Maxamed Cali iyo Saadaam mootadu ku soo korisay wuxuu yiri meel ay geenay inta meeshii uu waday intaana la gaarin ayuu wuxuu yiri dukaankana wax ka soo qabsanaa alaaba ka soo qabsanaa isug wuxuu yiri walaalo kum suukar ana waa shaqaysan lahay mooto deena ku wada soo dhaqso ana wuxuu yiri 2 daqiiqo ka badan kum sugaay Saadaanna balanti Maxamed balanti meesh ku taagnaay maadaama Saadaan wuxuu yiri nin asugayso uu ahaa degdegsiimada oo orodka iyo sugitaanka sidaas ahayd mudane gudoomiye qof dukaan galana oo wax ka soo gadanayo qof inuu wax hadayo looma maleynayo mana arkeen aragti qofka diirta walba hortiisa diiq qor wax loo qaadala waxba ahaleed
laakiin nin dukaan tagay oo rakaab ku ahaa oo dukaan galay oo qof ka daba qaylina aan arkin laakiin aad sugaysay oo inuu 2 daqiiqo kuu soo dhaqsado aad sugaysay maadaama shaqo kala qabsan rabto oo mootaalo aad tahay mudane gudoomiye sugitaanka uu sugaayay waxay ahayd inuu soo degdegsiimo degdegtii mootada orodka uu ku soo raacana waa sidaas wax dambiya uu leeyahay ma jirto xafiiska xiraalinta mudane gudoomiye mootada iyo shaqadii yariista uu ka shaqaysanaa ayuu ku joojiyay hadda waxaa lagu maaragtay dhibanihii oo ninkii oo mootada u waday oo u shaqaynaa oo shaqaala u haay mootadii ka cistay asiga hadda dhibane oo shaqadii uu ka shaqaysanayo wix yaraayo biilka ka raadsanayo hadda mootadii laga qaaday mudane gudoomiye waxaa maxkamadda ka codsanaa in mootadiisa sida uu shaqaysan jiray loogu ogolaado oo asiga maaragtay oo ciqaabta laga dhaafo maadaama uusan wax ka ogeyn mootadina maaragtay kiro uu saas u ahay qof kireyste oo meesha la geey idhaahna la geenayo qofkii soo raacaana saas u raacay saadaam haddii wax qaatay iyo haddii wax geysana uusan wax shaqaa uusan ku leyn baaraana way sheegtay in wax lacag u tuurto ma jirto mudane gudoomiye haddii macquul tahay waxaa la caddeyn lahaa bakshadii loo tuuray oo lacagtii loo tuuray ayaa la keeni lahaa maxkamadda haddii lacagtaas lagu arki lahaa ama moobilkiisa lacag isku tuureen ama $100 ama $50 ee isku tuureen haddii jirto oo xafiiska u caddeeyay ama baara ay caddeys maxamed waa dambiile markaas mudane gudoomiye laakiin haddii aanan la caddeynin oo sugitaanka uu sugayo ee tahay wax dambi uu ku leeyahay male mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaa maxkamadda ka codsanaa in maxamed cali xoriyadiisa ay maxkamadda siiso saadaamna wixii xuquuqaad uu ku leeyahay inay maxkamadda inuu iska bixiyo diyaar u yahay wixii xuquuq uu leeyahay wixii kale falki kale oo yaaqshidna maxkamadda u fududeyso wixii maaragtay u fududeyso hooyadiisa mudane gudoomiye joogto maxkamadda waxaa ka codsanaa inay hooyada warbixinteeda iyo heshiiska iyo meesha uu maray inay maxkamadda ka wareyso haye maxaa codsay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaa qaladkan gale ana aan ku jiro haddadaan khilaalka ka ahayna mudane gudoomiye waxaa diyaar u ahay dadkan waxaas oo dhan ka wada hadleeyeen waa dad isnaqaano maantan ogaa in la isqabsan doono beri ka maalin waxoodan u celi doono shalay markaa baahida u qabo saas darteed u sameeyay iskuulkee ka baxday adiga jaabir bin xayaan alqalow sanadkee 2021 anoo askariga ka baxtay adiga maxaa u qaad maxaa ula orod wal ordiisay maxaa ula orday ninkan wax soo qaatay maya mudan garsoor lama ordinaan degdeg ay ugu furnaa ninka markaa soo qaaday marka hore uu sheegay ana meelaha ka degsanay meeshan ciyo ka soo dhaqso marka meeshii ku sugay ciyo soo dhaqsaa ciyo sidii ugu maad marka sidii ay wada baxnay degdeg soo kugu furnaa taagana carabtabe maya markuu soo socday gadaasheeda inaa fiiriyo waxaa soo dhaqsaa waa bixir waay هذا تايم أي وسعد واللي سوى شغل اللي سوى أنا شغل ستار واي محكمة معك دلبنا محكمة وعاك عسلا يعني إنه واحد واحد كوين أو نين كريستا أي ولا سو كريستي أو إنه شغل سنة أي وعن واحد كوين نعم قال أو نعم فوق ولا كم كنت غانا موبايل كاك كم وامي شغل في تيجي مش كله كله محكمة مغنانا موبايل كان ذاقيت الموبايل يلعب لعبت محتى الموبايل كان قاعد موبايل كان وحكى كانوا كان مغنى محكمة قوان كذا كويلي صالح كالف هذا كذا هذا كان هدا غاية المحاكم مغنى أو بغلود كان مغنى قوان محكمة كذا كويلي ورد كان يعلى ولا سوق ذي الله هاي محمد هيك كم تقانا ولا نوعان aku beri kata. Dalam mi. Kisah aku lihat kerana asal kesu kerta wahal. Wahal usku kerana aku ni. Sud. Kan mereka kait tu, hakam makna. Alsam ada kamu orang saya. Macam tu gana aku ni. Inta suku dia kisah nuhrin.